بسم الله الرحمن الرحيم. dalkeena Soomaaliya waxa uu ka mid yahay wadamada kaalimaha hore kaga jira wax soo saarka beeraha taasoo ay ugu wacan tahay noocyada dhulkiisa hodanka ku ah macaadinta webiyada roobka dhirta iyo cimilada wanaagsan ee Allah subhanahu wa ta'ala ku galladaystay inkasta oo dalka intiisa badan wax lagu beeri karo haddana marka ay dadka qaar maqlaan sheeko ku saabsan wax soo saarka waxaa durbadiiba maskaxdooda ku soo dhacaya gobollada ay maraan webiyada Jubba Shabeelle iyo Daawo balse waxaan qaybtan idinku soo gudbinaynaa gobol aan webi lahayn haddana uu wax soo saarkiisu horeeyo waana gobolka Bay جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون الفكر يا إنسان لو أطلقته gobolka Bay waxa uu xuduud la leeyahay gobollada kala ah Bakool, Gedo, Jubbada Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. gobolkan dadkiisu waxay caan ku yihiin barashada Qur'aanka Kariimka, shisheeye nacayb xoolaha iyo nimcooyin kale. deegaanada dhulbeereedka caanka ku ah ee aanu tagnay barnaamijkanna aanu ka soo diyaarinay ayaa waxaa ka mid ah Xabaal Barbaare, Idaale, Ufurow iyo kuwo kale. halkan waa degmada Ufurow waa degmo sii dhismaysa ganacsi ahaanna horumar sameynaysa isla markaana ay ku nool yihiin dad badan waxaa ku xeeran dhulbeereed ay baaxaddiisu weyn tahay oo isku xiran ilaa laga gaaro degmada kale ee Qansax Dheere jiha walbana waa sidaa maamulka wilaayada islaamiga ah ee Bay iyo Bakool ayaa waxa uu dhiirigelin u sameeyaa beeralayda isagoo u qabta dowraad ama seminaaro uu ku siinayo duruus kala duwan oo ay qayb ka yihiin kuwa ku saabsan wax soo saarka beeraha. dalagyada ugu badan ee ay tacbadeen beeralayda Ufurow waxaa qayb ka ah gallayda oo ka mid ah cuntooyinka diirka leh ee caafimaadka u wanaagsan. dhirta gallayda ee halkan ku beeran ayaa xilligii aan booqanaynay ahayd mid la soo baxday sabuulka. Muxyidiin Maxamed Xasan waxa uu inoo sheegay in beertiisa uu fasalkan geliyay kharash yar Allahna uu u barakeeyay wax yar kadibna uu filayo faa'iido badan. wayara shaqaale abuurti si badanta aan ciyaalkay xaaskay abuurnay laakiin shaqaalana ka jarta wayaro oo 300 400 500 ay geliyaan oo shilin Soomaali
wajaro shilin Soomaali oo 300 400 500 ada beerti on kuwiina oo meel raay boqol taab ma garaasay wala hal milyan dhamayn beerta lixdan taab ya ka kaabsan toon hektar ma ka saan dabadan oo lixdan taab lixdan kaas taab hadii oo meel raay 500 700 ligri laag 4000 3500 qiyaastii meelahaas yaa ku bahaas xoolo dookano dhamaadii oo kala sii ka gadaan gaala la gaday idinka la gaday qaar bakaaro ka shabay wal fuustaal ka shabay wal isticmaale marka intaas ya beeroon kulmaan dadka tacbadan beeraha ee horumarka ka sameeyay waxa kamid ah Cabdullaahi Maxamed Xasan oo sanado badan ku noolaa xeryaha qaxootiga ee Kenya waxa uu inoo sheegay inuu Allah uga gargaaray mustaqbal xumadii uu ku jiray xilligii ay isaga iyo caruurtiisuba ku noolaayeen xagar dheer kadib markii uu dhulkiisii dib ugu soo laabtay isla markaana uu tacbaday wadan Kenya yambay go'tina meelkii reeraseedi dagalimees ifimeelaasase caruur ano qoftumo dhaween wadanka wadankan kaaje ama ki anfaani gal oo tii safi ana oo kaswaay yaa ku tahay halkaas meeqa sana qaxooti ku ahayd lix sana qaxooti baad ahayd adiga iyo caruurtaada noloshiina ka waran markaas say ahayd ariida ka jirta waa gartay oo inta ku faliya beeran gal idan boos ni weyn oo saf galay raashin bisil saf galay yani xisaabtimi habbe wadanka la kala beeri oo ku tabeer urti ku diiday yaamaay beeriya ilaahay badar in kabi wadan badar beer gabay makaari tuugi badarki waa gadar gaala gadi iran gadi loo gadi alhamdulillah yaalki iyo aadu hanay waa gartay hada wadanka ugu alhamdulillah beer gaala bay beer beerote saddex bilood badio armaan mada barsho oo bada caruurti oo Saudi iyo meel baajada ku reebi wadanka nicmo alhamdulillah naris ilaahay ninkasi hadda marka waxaad leedahay beero iyo xoolo intaba alhamdulillah beero hore ilaahay si naagduma kuna kala guursidi naagdika waa dhashiyaan laba ruux dhashi alhamdulillah ilaahay ka maadin alhamdulillah marka laga yimaado Ufurow waxaanu tagnay dhul beereedka xabal barbaare wilaayada islaamiga ah ee Baayi iyo Bakool socdaalkani waxa uu ku soo aaday xilli uu dhulku barwaaqo ahaa dhirtuna cagaarnayd deegaanba deegaan ka jawi duwan ayaan uga sii gudbaynay ciidda dhulka aanu ku socdaalaynay ma ahayn hal nooc oo kaliya mar waxaan arkaynay carro bacaad ah oo quruuruxyo leh misana qurux badan mar dhul gawaan ah oo adag mar dhul dhagax leh oo biyaha ceshan kara mar dhoobay ku habboon beerashada marna waxay indhuhu qabanayeen carro guduudan inta aan socdaalka ku jirnay hadba waxaanu wadooyinka ku arkaynay xoolaha sida geela lo'da iyo ariga dadka reer guuraaga ahi waxay ku jireen hayaan si ay u degaan meelo ay horay u soo sahansadeen oo naq iyo daaq fiican ay ku soo arkeen halkan waa beeraha deegaanka xabal barbaare wilaayada islaamiga ah ee Baayi iyo Bakool dhulku waa barwaaqo dadka wax tacbadahi waxa ka muuqda ladnaan rajo iyo farxad waxay beerteen dalagyada kala ah masagada galeyda digirta iyo sisinta odayaasha dhaqanka ee deegaanka qaybna ka ah beeralayda ayaa ugu horeyn inooga waramay xaaladda guud maraaxishii la soo maray iyo himiladooda marxalado badan ayaa kulkulun marxalado aan kulkulun may kuma tahay dagaal qabiil oo
iyo toob aan lahay kulkulumni asbaar oo lan alla lankii tumuunug lankii dhali shan asbaarada aan bahayan oo wal lagu tacliimo halko ilama oo dugsiga geliyoon anta kaleena aragtay wal qubadka oo hadda xilliga hadda ka baagan yaalo miyaala jarna asbaarooyinka iyo dhibbadan lankii lan dilo oo markaasi lan bedel geesu ay wallahi kan laga soo dili maadaama aslan soo dili wallahi lan khatar waay yalla rajari lan ku soo dilaawna wala soo dilaawna bacdo oo soo gacanta sidan ka wada anti walka jaraan anti walanka jarna بس والب وجاين أما والكجران عاودي يا بدن كده جري ساسن نسكدلي جري ذاك شمبر أو للدلاو أما لها توادت يلا متى هذا جران وقتك أصبح مرني نبجيل في عنا جوجنا بربران سومرني دباتان سومرني دعان سومرني بربر بدنا سومرني تقال قبيلان سومرني اسبحيسي بدنا سومرني وحي دما لها دوا لغا سو غلبي كل هدا بلاو لها دمادنا waa leedahay marka bilaaw dhammaad waa bilaaw leeyahay dhammaadkeed waa laga baxay hadda waxaan joognaa alxamdulilah barwaaqo nabadan joognaa wixii hadda igu darnaa aan arkoon oo mucjiso ugu noqday waxay ahayd nin oo Soomaalida waxa way nin dhalad iyo nin dhuxul awalay nin dhalad nin dhuxul dhacay marka ninkii la deganayo sheek dhacay aan la kulmay hadda waxaan arkay ninkii maanta ka dhici jiray oo meeshan raamacadii 30 milyan lacag ana loor ku tushti gaarida meel saartay kareetanta ka saartay oo ku geey bush madin boqor kale ushiis kali wat wax kale aan wadana wax dhacay oo wax deynay oo wax warsinay wax bana aan jir waxyaalaha aan leeyahay kamid ah oo lacagtii ari ku soo iibsidi oo iska laweynay kaligiisa marka intaas oo nabadgelyo mujaahidiinta marka ay maadana la kulmay beeraha masagada ee dhulkan muddo ka yar 100 cisho ayaa lagu beertaa laguna gurtaa masagadan ayaa waxay ku baxday biyihii roobka ee guga waxayna bulshada deegaanka inoo sheegeen inuu Allah ku galladay roob ay ku diirsadeen kaasoo sabab u noqday waxay indhahayagu arkaan janow sabriya cali oo ah 55 sano jir waalid u ah 9 caruur ah oo aanu booqanay ayaa waxa beertiisa ka baxayay badar u badan masagada nooga sheekay balceeda iyo dhirkeeda balceeda waxa waaye 222 iyo 2 waa dhirkeedii 95 gudaheed waa waxa ku beeran waxa ku beeran galay iyo masagada haye galayda iyo masagada yaa badan waxa badan masagada badan isku waqti baad beertay isku mar usoo waqti la beeray haye hadda halkee wax ku maraya waxay marayaan galayda cunowgeedaan bilaabay masagada naxboogay inoo marka goorma ayaad gabi ahaanba wada goosanaysaa waxa oo dhan waxaan wada goostaa markii 9 ay isgaaraan ka dhiman hadda marka 70 la joogaas waxa ka dhiman 30 bil ayaa ka dhiman marka maxaad rajeynaysaa bishaas waxaan rajeynayaa 50 loor oo galay ah 100 loor oo badar ah waa 150 kiish oo badar ayaa ku soo go'aysa asaasan fil hadii ilaahay eebir raali ka noqdo marka suuq geyn ka warna halkee baad geenaysaa markii hore beec ma lahayn intii ay noo imaaday oo orday waqtigan la gaari oo shabaabta ay noo imaaday geelaal aan ka helnay aan ku tacbanay loo aan ka tacbanay ariyan ku tacbanay guriyan ku dhisanay barwaaqo ilaahay noo siiyay marka hore hay'adda ay imaanaysay dad ay khasaarinayay badar kale lagu soo daadinaa waxa ka gadayba ma lahayn markii hore inkastoo dhulkan uu yahay mid ku habboon tacabka masagada haddana waxaa jirta xikmad kale oo ay bulshada deegaanka iyo guud ahaan gobolka Baay ku doorteen tacbashadeeda masagada 7 shay oo kale ay arfaysa mar soora laga dhigaa horta mar ambuula laga dhigaa mar mashaariya laga dhigaa
mar anjeera laga dhiga mar moonfa laga dhiga mar naagta oo mishaari loo karina mar ilmaha lagu korina haddana mishaari looga dhiga adi waxyaalahaas todobadaas shay oo kale ay anfaysa horta faa'iido badan ay leedahay faa'iido badan ay leeyahay beeralaydu waxay inoo sheegeen inuu allah u barakeeyey hantidooda markii ay ka bixiyeen sakada oo ah tiirka saddexaad ee islaamka lana siiyo 8 qaybood oo dadka ka mid ah sida ku cad aayadda 6aad ee suuradda at-tawbah أتو مركين إذا كده كده داريان سازرادي سبحانه وتعالى مرك عروش يا سيدة كمان ودنك بدمر واجنا هذه ودنك يدي amniga dhankiisa beeralaydu waxay inoo sheegeen inuu aad u wanaagsan yahay ma jiraan wax xadgudub ah oo la isku geysanayo maadaama ay wilaayada ka jiraan maxkamado islaami ah oo qofkii la dulmiyey xaqiisa uga soo dhicinaya kan daalimka ah nabadgelyo taam ka qabna alxamdulilah ilaahay aan ka mahadiyana wal kasta diinta balan iyo maamulaha ee kitaabka ilaahay dhatiisna oo la ka jartay walakum fil qasas ba ilaahayna aray lanka wal yar talaabo xun SOB waa kitaabka ba talaabo ku qaadahay maamulkaas islaamiga ayana xukumahay wal dhibaato ma ka qabno nabadgelyo beerogaano sa'iin lagna dhaco male walna tuugi iyo wal dhibaato ninjiisa male marka eeda iyo macnaha nabadgelyo taam aan haysan alxamdulilah ilaahay hadana gudbi xalliga hadalka jaro isbaarinki badanay meeli isbaarada arinyo shanta qof lanka ku dirsaday hadda anaga 4 jeer magi isu deerow walku dharre 4 jeer magi deerow 5 jeer magi deerow dugsimo oo diini ah oo jiraan walka tartama ayaalka may buwaa lan kastaba aala ko hormarnay adeela ko badinay walaal oo la tartamaana diinka islaamiga hadda deegameedii saasay goobtii lan wala nisda maamule balaamaytii hadii geeygun loor beese qaado ila dhoobay hadii shireedii lay socoto lan sidan andaana alxamdulilah ilaahiya niyan waali anu kasbadu korno wal ilaahi sunniyan waali ma wala anu kasbadu korno ma taasna ma sheenay walaayada islaamiga oo geedka oo deegaanka bar ibeer ka laaba ma hay oo geedka walaa iyo surinyin ilaahay dareedis leh iyo kitaabka ilaahay oo lisku xukumo antaas aragtay nabadgelyada antaas ilaahay shaani haddana waxaan u soo gashaynaa kulan mid kale oo beeralayda ka mid ah waa nin dhalinyaro ah walaal magaca Yusuf Sheekh Maxamed Khayr Yusuf adigu beeralay baa tahay dadka ka shaqeeya ayaad beeralay reer baad leedahay iyo beerta maxaa ka baxaya marka sisin goorma ayaad beer jiilalki horana waraysi bilowdan la sugee intaas yaa warnaabas marka marba waxbaad ku beertaa mise joogto waxaad u beertaa sisin markasta wala laga beeraa sida galeyda sisinta digirta misgida sida looska markasta si maana guudiir hanshal bahan sida si oo kolkaas in la haboonto abuurka si oo shiglayn isku abuurdan oo ilayo ay waqti sisintan ilayo suuq jaro ama wadanka basaasan ka badana inay abuurdan marka hadda waxaad jeclaatay inaad sisinta ku beerto xilliga sisinta oo ka mid ah dalagyada ugu badan ee halkan ka baxa ayaa waxaa ku jira inta badan nafaqada uu u baahan yahay bani aadamka ama guud ahaan noolaha waxaana caafimaad ahaan laga helaa carbohydrates proteins gaar ahaan amino acid dux biyo vitamin C macdanta sida calcium iron magnesium potassium sodium iyo kuwa kale sisinta waxaa laga helaa faa'iidooyin dhaqaale oo badan maadaama laga sameeyo saliid macsarada xilliyada qaarna dibadda loo iibgeeyo marka insha Allah hadda beertan aad argaas oo aniga isku leh santayn ka abuuran marka hadii ilaahay aro dalag fayle intii ay ku gooyay rajay ilaahay ku rajay marka sisinta faa'iido gaar ah ay leedahay miya misgeed ku qiimo badan tahay faa'iido gaar ah lata
maadaama dadkan aan aamanay awlaadan aan isticmaalana laakiin iyada dhaqaalida kiimiyaas hooli laga gadada marka isku celcelis qofkii sisin beerta imise bilood ayay ugu soo go'aysaa isku celcelis ma isku gaase lama biloodii bar 75 beri meelahaas waa ka soo geysa kadib waxa weeyaan waa faa'iidadaada ayaad qaadanaysaa insha Allah inta badan marka dhulkan weyn markii saatan oo kale loo beero faa'iido intee leeg ayaa laga helaa والله دي هو انت اللي جميل هذا شامبو الجليد الا يلا ما كنت سدكم الكوله فايده فيها او فايده الكوله haddaba waxaan halkan ku soo xirnay wejigii koobaad ee socdaalkeenna innaga oo bil kadib isku diyaarinay safar kale oo aannu dib ugu soo laabanayno si aannu indhahayaga ugu soo aragno natiijada wixii la beeray من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان دستورنا 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 القرآن من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان